Bismillahir Rahmanir Rahim kulan haboon daawadayaal ku soo dhawaada qubanaha wararka xaqiiqda caalamka qodobada aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya weerar ka dhacay iskuul sare oo ku yaala deegaanka Thunberg ee dalkaasi Canada ugu yaraan 10 arday ah ayaa ku dhimatay tirada dhaawaca waa tirabeel qubanaha ayaan kugu qaadal dhigi doona madaxweynaha Colombia oo isla markaasi sheegay in uu ka badbaaday isku daydil xilli uu golihiisa wasiirada uu la hadlayay waxaa kale barnaamijka aad ku daawan doontaan dalka Turkiga oo isna hanjabaad culus waqtigan jeedinaya kadib xilli Iran ay sheegtay in ay diyaarinayso hubka nuclear-ka ugu culus haddaba wasiirka arrimaha dibadda Hakan Fidan oo isna markaasi sheegay in dalka Turkiga ay waajib ay ku tahay inay soo saaraan hubka ridada dheereeya haddaba seefaysiga waramada waqtigan caalamka ka bilaabanaya maxay tahay doorka Israa'iil ama albaabka Israa'iil ay furtay ma u horseedi doona dagaalka saddexaad ee adduunka waxa sidoo kale qubanaheena aad ku daawan doontaan madaxweynaha maamulka Somaliland oo 3 maalmood ku sugan dalka Israa'iil maxaa ka soo socda halkaasi maxay ahaayeen heshiisyada kala duwan ay galeen Israa'iil wali damceeda kama aysan laabanin talaabada waqtigan ay qaadaysan ayaa u muuqata in mar kale ay ku xoojinayso aqoonsigii qarka Turka ah ee Somaliland dhulka loogu tuuray waan kugu qaadal dhigi doono qubanaheena ayaad ugu bogan doontaan waxa sidoo kale barnaamijkeena aan ku qaadal dhigi doona madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa markii ugu horeeyay si cad u sheegay in la joogo waqtigii midowga Yurub ay ka wada hadli lahaayeen ama wada hadal toos ah ay la yeelan lahaayeen Ruushka isagoo ku tilmaamay Ruushka inta laabooyinku uu qaadi rabo oo yihiin kuwa halis ku ah dunida waxa kale oo ku daawan doontaan ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo ku sugan dalkaasi Mareykanka ayaa sheegay xilli telefishinka Israa'iil uu markaasi la hadlayay in xog sir ah uu u hayo Trump oo uu ku doonayo in uu si qarsoodi ama si gooni ah ugu la tago haddaba maxay tahay xogta sirta Netanyahu waqtigan uu wado ma aqoonsiga Somaliland ayuu damaciisu yahay in uu markaasi ka gado Mareykanka qubanaheena ayaad ugu bogan doontaan qodobadaasi waliba wixii kale inagu soo kordho markaas hore waxaan ka dalbanayaa inaad ku soo dhawaataan kuna soo biirtaan channelkeena Shariif Show mahadsanidin waa 11 bisha 2026 qubanaheena haddii aan u gudagalno weerar maanta ka dhacay iskuul ku yaala deegaanka Thunberg ee dalkaasi Canada ayaa lagu dilay 10 arday ah halka 25 kalena ay ku dhaawacmeen iyadoo markaasi la xaqiijiyay inuu markaasi fuliyay 17 sano jir Jesus Stone liiraado ee dalkaasi ama jinsigiisi bedelay kaasi oo isaga markaasi lagu dilay goobta uu weerarka toogashada ah ee markaasi uu ka fuliyay sida ay qorayaan warbaahinta ayaa sheegaya in weerarkan uu markaasi dhaliyay qasaare aad u xoogan walibana saameyn ku yeeshay arday halkaasi wax ka baranaysay in beeg si xoogan ay ku haayaan goobaha waxbarashada ay dadku iyo waliba meelaha kale sida weyn ay isugu yimaadaan inkastoo tirada hadda soo baxaysa ay tahay 10 arday ah halka 25 kalena ay ku dhaawacmeen waxaana dhaawacyada dadka markaasi la geeyay cisbitaal ku yaala dalkaasi oo lagu dabiibayo waqtigan iyadoo dhimashadu hadda ay u muuqato inay markaasi ka soo dareedo ama mar walba marka ka dambeeyo meedad horle laga helaya madaxweynaha maamulka Somaliland Abdurrahman Cirro ayaa maalintii saddexaad ku sugan dalkaasi Israa'iil sida laga soo xigtay madaxda Somaliland qaybo kamid ah iyadoo ujeedka safarka uu yahay dhameystirka heshiiskii ama sidii markaasi loo dhameystiri lahaa heshiisyada dhowrka ah ee Israa'iil ee Somaliland ay la galeen iyadoo la warinayo in waqtigan Somaliland ay si xoogan u wado dhankeeda ka dhanka ah aqoonsiga ay ku xoojinayso Israa'iil iyo waliba Somaliland ayaa la tilmaamayaa in ay markaasi wada galeen heshiisyo ganacsi oo waqtigan si weyn la qorsheynayo in deegaanada Somaliland ay ka bilowdaan walow aan si rasmi ah loo shaacinin safarka madaxweynaha iyo waliba sidoo kale joogitaanka halkaasi laakiin xogaha iyo waliba macluumaadka la helaya ayaa tilmaamaya in madaxweynaha Somaliland Abdurrahman Cirro uu si weyn markaasi ugu sugan yahay gudaha maamulkaas ee aan markaasi dalkaasi Israa'iil walow
aan shaaca banaanka la keenin waxa ay ka wada hadlayaan, laakiin wararka laga helay ayaa sheegaya in uu rabo inuu sii xoojiyo aqoonsiga Israel isaga oo dalal kale si weyn ugu daba jiro sidii Somaliland ay ku aqoonsan lahaayeen. madaxweynaha Colombia Gustavo Petro ayaa sheegay in markaasi uu ka badbaaday isku day dil isaga oo la hadlayay gulihiisa wasiirada xilli uu markaasi uu marayay meel aan sidaas ugu fogeyn aaga madaxtooyada, waxaana uu si cad u sheegay in talaabada loo qaaday ee ahayd mid markaasi lagu damacsanaa in lagu qaarajiyo walibana si weyn ugu dhaleelaya mucaaradka halkaasi. walow aan si cad uusan u shaacinin, haddana waxaa muuqata in talaabada ee isku dayga dilka ahi uu si weyn markaasi ugu xagaldaaminayo mucaaradka dalkaasi, maadaama uu muuqdo waqtigan in hanjabaado kala duwan ay ugu imaanayeen. waxaana sidoo kale madaxweynaha Colombia si adag uga hadlay isku dayada qorsheysan dadka sida xoogan u damacsan inaysan u ahaanaynin kuwa markaasi suurtagal ah ama sii jiri kara, maadaama waqtigan uu halis aynu ku galnay ayuu yiri marxaladaha kala duwan ee aynu ka wajahayno dhibaatooyinka aan marna si looga gabanaynin. dhinaca kale wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi Turkiga gaar ahaan wasiirka arrimaha dibadda Hakan Fidan ayaa markaasi sheegay in haddii Iran ay samaysatay bamka nuclear-ka waxaa qasab ku ah Turkiga inuu isagana sameeyo ama nashqadeeyo habka ugu sareeya nuclear-ka, maadaama dunida difaaceedu aad u xoojisanayso. waxa inaga go'an ayuu yiri talaabo kasta ay qaadaan inaan inaguna dalkeena aan u sameyn doono hubka kooda ugu culculus. xilli uu ka hadlayay ayuuna si weyn ugu nuxnuxsaday in hubka nuclear-ka uu noqday midka maanta waa dawladaha caalamku sida weyn isugu dhoolatusayaan, maadaama si weyn loogu baqdin qabo in Iran ay bilowdo weeraradeeda ka dhanka ah. waxaana si adag u xusay xaaladda gobolka waqtigan in ay ku beegmayso mid xiisad colaadeed xilli Iran wada hadaladeedu guul aan laga gaarin, laakiin ay u muuqato waqtigan talaabooyinka ay qaadayso in ay si weyn ay u saameyn karto. وهاجيلي دمات كتاد إلى سو قارتي واتكو مهسن تخي مركلي يان كاد البنايا إناد كو صبيرتو جنرال كينا شريف شو مهسندين.